Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Kenya, Rigathi Gachagua ayaa si adag u cambaareeyay weerarkii ka dhacay deegaanka Carabiya ee ismaamulka Mandera, kaas oo lagu dilay 6 qof oo rayid ah. Gachagua ayaa sheegay in 2 maalmood kahor shacabka Kenya lala wadaagay war murugo leh oo ku saabsanaa fal gardarro iyo xadgudub uu ku tilmaamay, kuwaas oo uu ku eedeeyay inay geysteen ciidamada Jubbaland ee ku sugan deegaanka Cumar Jilacow. Waxa uuna ku tilmaamay in si sharci darro ah ku joogaan dhulka Kenya, siduu hadalka u dhigay. Waxa uu tacsi u diray qoysaska dadkii lagu dilay weerarkaasi, isagoo dhaawacyadana u rajeeyay caafimaad degdeg ah. Rigathi Gachagua, ku-xigeenka madaxweynihii hore ee Kenya, ayaa waxa uu xusay in sanadkii hore uu ka digay khatarta amni ee ka dhalan karta joogitaanka ciidamada shisheeye ee dhulka Kenya, gaar ahaan ismaamulka Mandera, isagoo sheegay in dhacdadan ay xaqiijinayso isla markaana ay xoojinayso digniin uu horey u bixiyay. Waxa uu ugu baaqay dowladda Kenya in si degdeg ah looga saaro ciidamada shisheeye ee sida sharci darrada ah ku jooga deegaankaasi, isagoo carabka ku adkeeyay in la ilaaliyo amniga, madax-bannaanida iyo weliba karaamada shacabka Kenya.